عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن سلام الأمان ولا لها ملك استوى جوكتان وقتي إيوان أنتو حاربين واحد أن الخيب صدو ترانسيشنكا عرورتا باهيدا قار كاله قاسة إلمها باهيدا قار كود أيهن كومبلكس وأنا قاري كرين قوامو أما قوامو دا قاري كر لفتر كودا waxaa jiro waxa la yiraahdo transition waqti ay maraan xilliga ay ka baxayaan ilmanimada qaasatan wadamadan aan joogno oo maxaan ku rahdaa qurbaha sida maxaan ku rahdaa Yurubta ama Mareykanka ama Canada meesha doonaan ba ha noqdaane ilmihii uu qaangaaraya waxaa jiro waqti uu ku qaangaaro oo ka duwan waqtiga anaga Soomaali hadaan nahay aan u naqaano qaangaarka marka ilmaha waxaa jirta xilli marka ay gaaraan ee go'aamadooda ayaga ay gaarayaan waalidka aan macnaha laga sugin in ilmaha go'aan u gaaraan waxyaabaha aan u baahannahay inaan ogaano haddii aan nahay gaar ahaan waalidka ilaahay uu ku irsaaqay ilmaha baahida gaarka leh ayaa waxay tahay ilmihii yaraa ee baahida gaarka qabay markuu weynaado in loo diyaariyo nolosha inta ka dhiman sida u noolaan lahaa iyo meeluu ku noolaan lahaa iyo waxyaabahaas oo dhan laga sii fikiro ilmahan yar ee quruxda badan leh ee maanta baahida gaarka la nool noocii doontaba ha noqotee qaasatan ilmaha autismka lagu diagnose gareeyo autism waa spectrum waa umbrella qof walba meel ayuu ka taagan yahay ilmo walbana meel ayuu ka taagan yahay way kala duwan yihiin ilmaha iyo dadka si u saameeyo qaarkood waxaa jiro autism ilmaha qaar waxaa u dheer xaalado kale u dheer ciyaalka qaarkood xanuuniya ku dhaco u dheer marka maxaan ku rahdaa complex needs ciyaal waxaa jiro oo dhaqaatiir fara badan la xiriiro caruur waxaa jirto iskuullada mainstreamka aanan dhiganin ee special need schools dhigtaan marka haddii aan ka hadalno ilmaha dhigtaan special needka oo maxaan ku rahdaa special need school dhigtaan inta badan kuma dhameeyaan sanad dugsiyeed kuma dhameeyaan waxbarashadooda laakiin waxbarashadooda waxay ku dhamaataa da'da kasoo qaad iskuulka uu dhigto ilmahaaga waxaa laga yaabaa inuu ilmahaaga xaq u leeyahay ama uu dhigan karo iskuulkaas ilaa uu ka gaaro 19 sano ama 18 sano meesha iskuullada mainstreamka ilmaha ay kaga baxaan 16 sano ay ku dhameeyaan ay aadaan college marka waxaa jiro team loogu talagalay waalidka inay caawiyaan oo la shaqeeyaan oo la raadiyaan ilmahaaga college-kii uu aadi lahaa haddii uu yahay ilmahaaga ilmo waxbarashada aad ugu fududahay waxbarashada ku fiican uu sii wadanayo maxaan ku dhahaa waxbarashadiisa high education jaamacad uu aadayo kaleeto iyo haddii uu yahay ilmo macnaha educationka aan meel aad u sii dheer aan ka gaari karin maxaa waalid ahaan nala gudboon maxayse tahay waxyaabaha aan u baahannahay inaan wax ka ogaano markuu ilmahaaga uu soo gaaro 14 sano waalid ahaan waxaan idinkula talin lahaa oo waalid badanna aan arkay anagoon ogeyn aan ku dhex dhacnay because wax ka hadlaaya ama waxa noo sii digay ma aysan jirin waxaa jirto waqti loogu talagalay transition program wax la yiraahdo in loo sameeyo oo ah isbedelka ilmaha ku imaanaya oo ah ilmanimadii inay ka baxeen oo ay noqonayaan qof weyn waxyaabo fara badan ayaa loo baahan yahay in la sii diyaariyo ama aan u sii diyaarino ilmaheena haddii aan nahay waalid aan ogaano maxaa agaarkeena ka socdo wadanka aad degan tahay magaalada aad degan tahay ilmahaaga muxuu xaq u leeyahay marka waxaa jiro iskuullada marka qaarkood way iloobaan iskuullada badankood laakiin transition team dad la yiraahdo waxaa jiro inay kula raadiyaan jaamacaddii ama iskuulkii ilmahaaga ku wanaagsanaa waalid ahaan anaga maxaana looga baahan yahay marka waxaana looga baahan yahay haddii uusan jirin wada hadal ama xiriir ka dhexeeyo iskuulkii iyo waalidkii in xilligaas transitionka ilmihii la diyaarinayo loo diyaarinayo qaangaarnimada ama weyninka in aysan dhicin ayaa laga yaabaa oo dhibaatooyinka ugu badan ee dhacda taas ayaa kooka ah waxaa kale oo dhacda ayaa waxay tahay ilmihii oo 6 bilood kadib ama sanad kadib iskuulka ka tagayo oo welina waxba loo diyaarinin oo aan loo diyaarin college-ku aadi lahaa haddii uusan college uusan aadeynin waxaa jira meelo day service la dhaho carruurta intay tagaan activity kala duwan ay soo sameeyaan oo guriga ay kusoo noqdaan waxaa jira college-ka inay 3 maalmood dhiganayaan oo qaarkood 2 maalmood oo ka baxsan maalmaha sabtida iyo axad ama weekend ka baxsan 2 maalmood oo kaleeta ay guriga joogaan labadaas maalmood oo kale xaggee aadayaan maxay sameynayaan because cunugii wuxuu ka yimaaday iskuul uu dhiganaya 5 maalmood haddana wuxuu aaday college uu 3 maalmood dhiganaya marka 2 maalmood oo soo hartay maxaa lagu buuxinayaa
haddii aan waxyaabahaasoo dhan lasii qorsheenin oo aan laga sii taxadirin oo aan lasii balan gareynin waxaa dhacda inta badan waqtigii inuu cariiri noqdo waxaasoo dhan lagu sameyn lahaa ilmihii ay kusoo dhacaan meel cidlo ah. waxyaabaha kaleeto oo maxaan ku rahdaye waalidka looga baahan yahay waxay tahay inay ogaadaan servisyada ka jira magaalooyinkooda iyo yaa caawin karo ama servicekeeta inay la xiriiraan si ay ku gaaraan ilmahooda meeshay u baahnayeen inay gaaraan. waxaa kaloo jirto dukumiinti la yiraahdo guardianship oo haddii ilmahaaga 16 sano uu gaaro ama 17 sano uu gaaro oo guardianshipkaas aadan haysanin ay kugu noqon karto carqalad ama ay kaaga imaan karto dhibaato inaa ilmahaaga go-aan u gaartid. anaga Soomaaliya hadana inta badan because ilmahan anagaa dhalnay haddii ay la nool yihiin baahida gaarka khaasatan aysan go-aan gaari karin waxayna la tahay mas-uuliyadoodii oo dhan cidna la soo faragelinaysa inaysan jirin. laakiin waxaa dhici karto in lagula soo farageliyo go-aanka. haddii aan usoo qaato tusaale caafimaadka xaggiisa haddii wax emergency ilmahaaga ay ku dhacaan habka ay dhaqaatiirta ay u daaweynayaan iyo habka adiga aad rabtid ay kala duwan tahay. haddii aadan haysan guardianship dhakhtarka wax aad kula doodi kartid oo sharciyan oo kaa celinaya ma jirto. marka guardianshipka muxuu kaa anfacayaa? guardianshipka wuxuu kaa anfacayaa ilmahaagii markii assessmentiga loo sameeyo haddii aysan lacagaha ay xaqa u leeyihiin oo kaleeto oo loogu talagalay in lagu caawiyo haddii aysan dalban karin adiga lacagtooda u dalbi kartid haddii aysan aqoonin lacagta sida loo manage garay inaad u manage gareyn kartid meeshii ay degi lahaayeen ay ku noolaan lahaayeen inaad adiga go-aankaas aad wax ka qaadan kartid oo go-aankaas aad leedahay. haddii aad rabto ilmaha markaan le waxa weeyaan ilmaha markay gaaraan 20 sano 21 sano 22 23 24 25 30 sano xaggee rabtaa inay ku noolaadaan ma adaa rabtaa inay kula sii noolaadaan ma guri baa rabtaa kaligood inay degaan waxyaabahaasoo dhan haddii aadan haysan documentigaas guardianshipka waxaa laga yaabaa carqalado fara badan inaad la kulantid. marka waalidka Soomaaliyeed waxaan ku baraarujinayaa khaasatan waalidka haysta ilmaha baahida gaarka leh oo baahidoodana complex ay tahay ma aha ilmo kastoo baahida gaarka leh inuu u baahan yahay guardianship laakiin haddii cunugaaga uusan gaari karin go-aankaas oo ah iskuulka meeshuu aadi lahaa college-ka meeshuu aadi lahaa caafimaadkiisa daawadiisa waxyaabahaasoo dhan uusan go-aan u gaari karin waalidka waxaa la gudboon inay 14 sano markay caruurtooda gaaraan ay bilaabaan documentigaas inay diyaariyaan hadduu ilaahay idmo. markii uu marayo cunuga xaaladda kala gudubka oo ilmanimada uu ka baxayo oo dad qofka weyn uu noqonayo waxaa jirto servisyo ama maxaan ku rahdaa waxyaabo markii hore dad la shaqeyn jiray markii hore markuu yaraa oo ilmanimada ula shaqeyn jiray markii uu weynaado uu noqdo qof qaangaaray servisyadaas inay meesha ka baxaan oo ay soo galaan servisyo kaleeto ku caawinayo. yaa waa qofka ugu horeeyo oo aad caawinaada weydiisanaysa ama xaggee caawinaada ka raadinaysaa? waxa ugu horeeya aad samayn karto waxay tahay social serviceka. Soomaaliya haddaan nahay social service markaa maqalno kulligeen cabsi ayaa macnaha nala soo gudboonaato oo social service waxaan u fahansanahay inay yihiin dad intay yimaadaan caruurtaada kaa qaadanayaan haddaysan jirin sabab caruurta loo qaato ama sabab ay ilmahaaga iyo gurigaaga usoo dhexgalaan social serviceka insha allah ma jirto sabab ay kaaga qaadanayaan ilmaha iska qaada ma aha. waxaana jiro haddii aadan haysanin social service kula shaqeyso oo kula raadiso wixii ilmahaaga ay xaq u lahaayeen ama ku habboonaa servisyada qaarkood maba samayn kartid. servisyada qaarkood ma heli kartid xaqna uma yeelanaysid wayna kugu adkaanaysaa inaad heshid. tusaale haddaan usoo qaato waxaad u heshay ilmahaagii college ayaad u heshay college-ka ayuu aaday 3 maalmood ayuu college-ka aadaa waxaa soo hartay 4 maalmood because isbuuci waa 7 maalmood 4 maalmood ayaa soo hartay 2 maalmood waa weekend dhibaato ma laha laakiin 2 maalmood oo soo hartay muxuu sameynayaa? haddii aad taa waalid shaqeeyo iyo haddaadan ahayn waalid shaqeeyaba ilmihii gurigu kusoo haraya gurigu dhex fadhinaya gurigii marka waxaa laga yaabaa cunugii inuu cunto fara badan cuno overweight noqdo caafimaadkiisii aysan fiicneen depression inuu ku dhaco waxyaabo fara badan iska yimaadaana laga yaabaa. marka waxaa jira meelo loogu talagalay activity ay ku sameeyaan dhalinyarada. haddii aad soo heshid haddaadan haysan social worker meeshaas ilmahaas uu tagayo ama qofkaas dhalinyarada uu tagayo lacagteeda yaa kaa bixinayo social service kaa bixiyo budget loogu talagalay ayaa jiro oo magaalo kasto local governmentigaaga iyo dadkaaga ay ugu talagaleen. haddii aadan haysanin marka wax kula raadiyo ama budgetkaas kuu keeno ama maxaan ku rahdaa ka bixi ilmihii meeshii aadayan servisyada way ku adkaanaysaa ilmahaagii inuu
baxo oo day serviceyada isticmaalo ama meelaha qaarkood uu tago. caqabadaha haddii aan waalid nahay khaasatan waalid Soomaaliyeed aan nahay nagala soo gudboonaada caruurta markay weynaadaan ayaa waxay tahay khaasatan caruurta baahida gaarkaa la nool khaasatan caruurta baahidooda ee tahay complex oo aanan go-aan gaari karin ayaga maxaan ku rahdaa meesha ku noolaan lahaayeen caafimaadkooda dhaqaalahooda waxaasoo dhan u gaari karin go-aan caqabadaha nala soo gudba ayaa waxay tahay sidii ilmihii ay iskuulku dhiganayeen ayuunba waxaan lagu yirahdaa ilmahaaga iskuulku dhameynayaa college macquul ku ah inuu sii aadana ma jirto markaas ayaa waaga nagu baryaa marka waxaan rabaa fadlan ilmo kasta hooyo kasta iyo aabo kasta uu soo gaaro videogan inaad hadda kasii tashatid oo kasii taxadirtid oo aad noqotid expert ku noqotid ilmahaaga baahidooda expert aad ku noqotid maxaa available ku ah magaalada aad degan tahay iyo xaafadda aad degan tahay maxaa macquul ku ah maxaa available ku ah oo aad ilmahaaga uga faa'iideyn kartaa waa ogahay in laga fikiro mustaqbalka ilmaha waa arrin aad u cabsi badan waa arrin aad u adag waa arrin ay la xiriirto stigma waxaan xasuustaa Ismaaciil markii aan go-aanka u gaarnay inuu dego kaligiis oo guri dego waxyaabaha lagu dhihi jiray waxay ahayd hadallo fiican maysan ahayn oo macnaha dadkan wiilkoodii disable ka xanuunsanaa bay guriga ka bixiyeen laakiin ani ma dhahay ilmihiina guryihiina yay idinla deganaanin waxaan idin leeyahay waxay tahay diyaar u noqda ilmihiina markay qaangaaraan sharci ahaanna diyaar u noqda information ahaanna diyaar u noqda waxyaabaha agaarkiina ah oo aad u heli kartaan ilmihiina si aan ilmihiina u noqonin ilmo guri iska fadhiyo oo caafimaadkoodii iyo maskaxdoodiiba dhibaatooyin ay kala kulmaan ilmo waxaa jiro ayagoo baahida gaarkaa qabaan jaamacada aadaan jaamacada dhigtaan oo maxaan ku rahdaa waxbarashada heer sare ka gaaro ilmo waxaa jiro waxbarashada ku adkaata laakiin shaqooyin helo oo shaqooyinka ayagoo lagu caawinayo ay shaqeeyaan oo shaqaystaan ilmo waxaa jiro college aado labada maalmood oo soo hartana aada day servicekaas ilmo walba wuu ka duwan yahay ilmaha kaleeto laakiin waa inaa barataa ilmahaaga xaaladiisa ahaataa waalid ogson oo macnaha runta isku sheegayo ogaataana maxaa available u ah ilmahaaga oo banaanka yaallo oo noloshooda heer ka gaarsiin karo teeda kale waa inaan isweydiinaa annaga waa sii gaboobeynaa oo qof weynaan sii noqonayna waa sii duqoobeynaa ilmahaana waa dhalinyaro maxay tahay mustaqbalkooda maxaa xal ah waxaa jiro marka qaarkood social service iyo markay kula shaqeynayaan inay kuu soo jeediyaan fikrada ah haddii aad tiraahdo kaleeto waxaan rabaa cunugayga in laga dhigo qof isku filnaansho gaaray independent uu noqdo ama waxaan rabaa inuu kaligiis dego waxaa laga yaabaa fikrado inay kuu soo jeediyaan ay ku yiraahdaan waxaa jirta guryo oo dadka dhalinyarada ay degan yihiin loogu talagalay dadka autismka not dadka autismka leh oo dhan ma aha qaarkood dadka maxaan ku dhaha learning disability-ga leh 2 sano meeshaas joogayaan qof walba qolkiisa iyo musqushiisa waa u gooni laakiin fadhiga iyo jikada ayuu dadka la wadaagaa waxaan soo baraynaa habkii uu kaligiis u noolaan lahaa oo ah inuu dharkiisa dhaqan karo sariirtiisa gogolan karo isku filnaan karo qubaysan karo adeeg aadi karo qofba haraaca hadduu rabee hooyo iyo aabo waxaan idin kula talinayaa intay ilmihiina yaryar yihiin oo ay guriga idin joogaan oo ay yaryar yihiin mararka qaarkood naxariista ayaa waxaa keenaysa ilmaheena waxyaabo badan ay baran kareen ay samayn karaan intaa u naxariisanayno ama anaga degdeg uu nagu jiro dartiis aanan ogolaanay ilmihii inay waxay bartaan intuu ilmaha guriga joogo waxaad bartaa inuu isku filnaansho meeshii ugu dambeysay inuu gaaro sidee u bari kartaa u ogolow markuu yaryahay kabiis inuu gashto jaakadiis inuu gashto markuu banaanka soo noqdo jaakadiis kabiis inuu xareeyo marka ka dambeysa uu soo weynaado bar waxba waxay kasii badan yihiin inuu isku filnaansho gaaro inuu intuu musqusha gal soo qubaysan karo inuu labisan karo inuu macnaha cadaysan karo inuu hadduusan cunto karin karin xataa quraac samaysan karo inuu sandwich samaysan karo waxyaabahaasoo dhan bar inuu suuqa ku raaca bar lacagta qiimadeeda hadduu rabiyo aqoonan laakiin bar in suuqa la tago lasoo adeegto adeega lasoo gato cuntada dharka in lasoo gato waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabo annaga waalid haddaan nahay aan ilmaheena intay yaryihiin ay guriga joogaan aan bari karno ma ha hadla ilmaha amyo hadlin muhiim ma aha still waa bari karnaa ilaa iyo heerka ay ka gaarayaan cunug walbo iyo ilaahay kartida uu siiyey iyo ilaahay siduu u abuuray iyo waxbarashadiisa ku xirantaas wuxuu baranayo laakiin barasho ahaan way baran karaan haddii aysan jir ahaan aysan ku adkayn cunuga keligiis inuu qubaysto uu samayn karo jir ahaan oo yahay ilmo awoodo inuu musqusha dhex istaago qubaysan karo ee ka xigta only in la baro waa bari karnaa
waxyaabaha ilmaha wax lagu barno waxaa ka mid ah visualka. Haddii aan usoo noqdo marka transitionka oo ah marka ilmaha ka gudbaan xilligan ilmanimada ay u gudbaan xilligan qof weyn ahaanta, documentigan guardianshipka aad ayuu muhiim u yahay. Saddexdii meel aan soo sheegay oo ahayd inaad go-aan u gaari karto ilmahaaga meeshuu ku noolaanayo, haddii emergency dhaco dhakhtarka suu u daaweyn lahaa aad go-aan gaari karto oo dhakhtarka haddaad isqabsataan xataa aad go-aankaas adiga aad leedahay, dhaqaalihiisa inaad go-aan u gaari kartid, waxbarashadiisa, waxaasoo dhan ayay awood kuu siinaysaa. Waxaad noqonaysaa ilmahaagii codkoodii. waxaa isku qori karta hooyado keliya ah, waxaa isku qori karaan hooyadii aabaha, waxaa isku qori karaan hooyada iyo qof kaleeto. markastana waxaa fiican laba qofood inuu documentigaas ku qoran yahay, sababtoo ah nafta la isma siinin. wax walbaa dhici kara, anaga xanuunsan karnaa, anaga mental capacitygeena ama go-aamada anaga aan gaarina waxaa laga yaabaa inay wax inta cudur nagu dhaco ama shil aan galno aan gaarayno. marka laba qofood inay ku qoran yihiin ayaa idinkula talin lahaa. documentigaas waa documenti sharciyeysan, waxaana go-aanka ugu dambeeya lagu soo gaaraa maxkamadda. intaas anaga markii Ismaaciil uu soo gaaray 18 sano kabacdi ayaan bilownay documentigaas inaan sameyno, sababtoo ah wari wacalba maanan haynin. waxaan aaminsanaa Ismaaciil inaan anaga dhalnay, in maadaama asaga go-aan gaari karo noloshan anaga go-aan u gaari karno, wax documenti ahna looga baahnayn. laakiin markaan galnay processkii inaan meesha u degi lahaa anaga aan go-aan gaarno, ayaa warqadahaasna la weydiiyey. markaasaana loo sheegay. markaas kadib ayaan warqadii u dalabnay. muddo dheer ayayna qaadatay. alxamdulilah hadda warqadaas waa haysanaa. familo badan aan ku caawino alxamdulilah hadda way haystaan. dad badanna waa ku dhiirigelinaa inay samaystaan intaysan ilmahooda aysan gaarin da'da qaangaarka, ay kusii bilaabaan ugu yaraan cunugaaga 14 sano markuu gaaro iska sii bilowdid processka, si waqtiga ilmaha uu qaangaaro adigana aad u haysatid documentiga. oo Soomaali waxay tiraahdaa shar u tog hay khayr waxba kaama dhibee. haddii aad u baahantaa qof uu macnaha dhakhtar ah ama qof maxaan ku rahdaa social worker ah ama qof uu ku challenge gareeyo, documentigaaga waad haysataa insha allah biidnillahi alkariim. waxaa referalka kuu sameyn karo inaa horta ogsoonahay cunuga iskuulka goorma ugu dambeysa. haddii cunugayga samarka 2023 September iskuul ugu dambeyso, oo xilligaas iskuul ugu dambeeya inaan bilaabay ahayd 2021 inaan processka sii bilaabay ahayd. maxaan ku rahdaa si maadaama samarka 2023 ugu dambeysa iskuulka aan ogahay iskuulka markuu dhameeyo September Agosto, anaga hadda wadamada aan joogno kale July la dhameeyaa. July markii uu iskuulka dhameeyay aan ogahay iskuulkii inuu xilligaas dhameeyay, college-ku uu aadi lahaa. intuusan iskuulkii dhamaanin college-ka asaga la sii geeyo, college-ka loo sii gudbiyo informationka cunugayga, cunuga xataa uu tago, ilmaha ay tagaan college-ka ay soo arkaan. maalmaha qaarkood ay college-ka ay kusoo qaataan, oo wiigiiba maalin ay college-ka tagaan ay kusoo qaataan, si transitionkooda iskuulka ay ka baxeen iyo college-ka ay aadayaan ee ugu noqoto si fudud oon dhibaatayna ka imaanin. ilmaha baahiyada gaarka leh khaasatan ilmaha autism-ka la nool waxay leeyihiin anxiety fara badan, isbedbedelka faraha badanna aad ayuu ugu adkaadaa. caqabad ay ku noqotaa marka qaarkood markay meel cusub bilaabayaan, inta ay kala qabsanayaan waqti ay ku qaadataa, anxiety fara badanna way kala kulmaan. marka programkan loo sii diyaarinayo cunuga in college-kii lasii raadiyo, college-ka haduu aadayo college-ka lasii helo, haddii day service ay tahay macnaha college uusan aadeynin uu tagayo meel day service ah, uu lasii ogaado, uu cunugii sii tago meeshaas uu wiigi maalin ama 2 maalmood sii tago sii barto. haddii ay tahay inuu shaqeeyo, macnaha meelihii uu ka shaqeyn lahaa oo loo diyaariyey oo sii aado, meeshay doontaba ha noqotee in loo sii diyaariyo oo qorsho iyo plan uu ku socdo. mararka qaarkood waxaa dhacdo adoo qorshihii sameeyey, plaankii sameeyey, in aad weysid qof social worker ah oo kula shaqeeyo oo lagu yiraahdo weli kuuma hayno qof adiga kula shaqeeyo. taas waqti ayay kaa qaadanaysaa. waxaa laga yaabaa college-kii ama meeshii aad ilmahaaga usoo aragtay aad tiri meeshan ayaa ilmahayga ku habboon inuu wax kasii barto ama uu tago ama uu ka shaqeeyo. waxaa laga yaabaa inay ku yiraahdaan hadeertaan dad ma qaadanayno, waa buuxnaa oo inaana sugtaa. marka in laga sii baaraandego oo lasii qorsheeyo oo loo sii raadiyo oo meeshii aad heshid ilmahaaga magaciisa aad kusii qortid aad iyo aad ay muhiim u tahay. taas waxay yareynaysaa in ilmahaagii ay kusoo dhacaan meel cidla ah, ay noqdaan waxbarasho la-aan, ay noqdaan college la-aan, ay noqdaan shaqo la-aan, ay noqdaan day service la-aan, meesha doonaan ba aadaan inay noqdaan ilmo meel cidla kusoo dhacay ayaa maxaan ku dhici karto haddii aadan sii balan garin oo kasii qorsheenin. yaa kala xiriiri kartaa arrimahaas. annaga ingiriiskaan degannahay,
waxaan u maleynayaa Mareykanka iyo Canada iyo Europe inteeda kalena waa isku mid meesha ugu horeysa waxa weeyaan iskuulkaaga inaad la hadashid oo tiraahdo okay ilmahayga xilligaas uu dhammaanaya iskuulka ugu yaraan 2 sano ka hor inaad kala hadashid oo tiraahdo ilmahayga xilligaas uu dhammaanaya iskuulka ma sameyseen referralkii oo ma u gudbiseen dadkii nala shaqeyn lahaa oo collegekii wax nala raadin lahaa may hadday ku yiraahdaan inaad arrintaas aad ku noqotid oo iskuulka ku dhiirigelisid inay sameeyaan marka qaarkood waxaa laga yaabaa in iskuulka ay kuu sameeyaan laakiin dadka adiga kula shaqeynaya ay yihiin transition programka ugu horeeya ay sameeyaan oo ayaga laftirkooda aysan aqoonin meelay wax ka raadiyaan iyo meelay aadaan adaa laga rabaa waalid ahaan inaad og tahay meesha aad rabto cunugaaga inuu aado iyo sida aad rabto in loo caawiyo taas waxay fududeynaysaa inaad u sheegto oo tiraahdo cunugayga waxaan u rabaa 3 maalmood college inuu aado 2 maalmood day service inuu aado day service wuxuu ku yaalaa meeshaas magacooda waxaa leedahay meeshaas adresskooda waa kaasa waa soo fiiri waa soo arkay boosna way haayaan kaas waxay yareynaysaa ilmaha waqti inuu ka dhumo inta iska daba wareegan lahaayeen waxaa laga yaabaa markaa meelaha soo heshid inaad maxaan ku dhahay day servicekii ay local governmentiga ama dadkii ka bixin lahaa qarashka ay yiraahdaan qarash uma hayno ama ma bixinayno qarash saas oo kaleeta oo ma bixinayno qarashka oo waa inaad sugtaa ama intay soo jawaabayaan xataa waqti qaadan kartaa marka in la balangareeyo oo waqti hore lasii bilaabo aad iyo aad ay muhiim u tahay waxaa kaloo muhiim ah dadka kula shaqeynayo oo ah social worker maxaan ku rahdaa iskuulka in communicationkiina uu aad u fiican yahay oo macnaha isla socotaan oo meeshii aad information aad ka heshid oo kaleeto ayaga u gudbisid ayaga markaas aad wareysatid oo hadal wada xiriir fiican idinka dhexeeyo wada hadal fiican idinka dhexeeyo wada shaqeynaya idinka dhexeeyo si loo helo cunugaas wuxuu ugu fiicnaa uu heli lahaa ilmo waxaa jiro waalidkood ay go'aansadaan ilmahaas inay kaligood ay meel degaan sida anaga aan u go'aansano kaleeto taas laftirkeeda ayaa kala baxbaxdo ma waxaa rabtaa ilmahaaga inuu guri asaga leeyahay oo gooni u ah uu dego ma waxaa rabtaa guri inuu dad la qaybsado informationkaas oo dhan waa inaad sii ogtahay waana inaad usii sheegtaa marka qaarkood waxaa laga yaabaa inay ku yiraahdaan gurigaan usoo helnay kanaa cunugaaga u maleynaynaa inuu u fiican yahay adaa lagaa rabaa waalid ahaan inaad ogsoon tahay inuu u xun yahay inuu u fiican yahay iyo sababtaa ku diidaysid oo aad dhihi kartid sababtaas iyo sababtaas ma raba cunugayga inuu guri dad la dego waxaad dhihi kartaa oo kaleeto buuqa iyo dadka ma jeclo wuxuu jecel yahay meel yaro quiet oo kaligiis inuu dego kaleeto haddii lagu keeno guri kira ah waxaad dhihi kartaa badbedelka faraha badan cunugayga dhibaato ayuu kala kulmaa marka waxaan jeclaan lahaa inaan u helo meel uu degnaanayo noloshiisa inta ka dhiman oo kaleeto marka annaga ayaa waalid ahaan waajib naga saaranta inaan ogaano maxaan la rabnaa mustaqbalka ilmaheena insha allah biidnillahi alkariim haddii ilmahaaga ay la shaqeynayaan dhaqaatiir kala duwan dhaqaatiirta markay ilmaha ahaayeen la shaqeynayeen way iska gudbinayaan waxay u gudbinayaan dhaqaatiirta dadka waaweyn taas laftirkeeda ayaa waqti qaadato oo maxaan ku rahaa marka qaarkood markii referralka loo sameeyo dhaqaatiirtii ilmaha markuu ilmanimo ka baxo uu qof weyn uu noqdo ayaa waxaa laga yaabaa waiting list inay ku jiraan oo cambaar ay ku qaadato dhaqaatiirta iskama kayskiisa ma xirayaan markuu dhahayaan anaga waa iska gudbinay ilaa looga helo dhakhtar ilmahaaga la shaqeeyo dhakhtarkii la shaqeyn jiray markuu ilmaha ahaa ayaa weli sii haynaya ilmahaaga kayskiisa iyo daawadiisa iyo waxaasoo dhan markii loo wareejiyo qaybta dadka waaweyn waxaa lagaa rabaa inaad ballan ka samaysid dhaqaatiirta la kulantid ilmahaaga uga sheekaysid inkastoo noodkii wixii dhan uu systemka ugu jiro haddana qofna kaagama aqoon badna ilmahaaga marka xilliga kala wareega ama kala gudubka ama ilmaha ay ka baxayaan ilmanimada ay qof weyn ahaan ay noqonayaan waa xilli aad u adag oo waxyaabo badan haddaana laga fikirin waxyaabo badan ay halaabayaan markii waxyaabo badan halaabaana dhibaatada ugu horeysa waxay soo gaaraysaa ilmahaaga dhibaatada labaad waxay kusoo gaaraysaa adiga sababtoo ah ilmahaagii oo dhibaateysan ama aanan habi ahayn ama aanan meel haysanin adigana walwal iyo dhibaato la-aan ma ahaanaysid fadlan waalidka qurbaha ku nool arrinta transitionka aad ugu baraaruga inaad leedikaaga baahan yahay ilmihiina guardianship ogaada khaasatan ilmahiina haddii ay yihiin ilmo aanan go-aan gaari karin oo meesha degi lahaayeen iyo meesha ka shaqeyn lahaayeen iyo lacagtooda iyo caafimaadkooda aan go-aan u gaari karin especially maadaama hadday ay yihiin guardianshipka xooga saara waqti horna iska samaysta insha allah biidnillahi alkariim haddaa haysatid guardianshipkaas xaq wuxuu kuu siinayaa inaa wax walba cunugaaga aad u samayn kartid dhaqaatiirta aad la doodi kartid kuwa housingka iyo guryaha aad la doodi kartid kuwa maxaan ku rahdaa dhaqaalaha laga dalbado aad la doodi kartid oo macnaha cunugaaga codkiisii adiga aad tahay ayaad xaq u leedahay insha allah biidnillahi alkariim
arrintan kala gudubka oo ilmaha ilmanimada ay ka baxayaan qof weyn ay noqonayaan taasna aad ha loogu dadaalo. Transitionka aad uu muhiim u yahay. Hadduu halaabo waxyaabo badan halaabo, ilmaha caafimaadkiisa inuu isbedela laga yaabaa, challenging behavior inay lasoo baxaana laga yaabaa, hurdada inay ka tagtaa laga yaabaa, anxiety, because cunug waxaa qiyaastaa ilmo baahi gaara leh. haddii aan tusaale usoo qaato ilmo autism la nool oo maxaan ku dhahaa autismkiisa macnaha uu yahay sabiir autism, inkastoo la diiday sabiir in la isticmaalo, oo aan hadlaynin, oo isbedelku ku adag yahay, markuu subax kasta iskuul aadi jiray, iskuulkii uu soo gabagaboobay, uu halkan soo fadhiiso, uusan fahmaynin sababta iskuulkii uu u dhammaaday, uusan u aadin college ama waxyaabo kale uu sameeyo uusan u lahayn, aaday ugu adag tahay. marka sidaas darteed waa inaan kasii taxadirnaa, sii ballaangaraynaa, sii qorsheenaa ilmaha markuu iskuulka ka dhammaado xaguu aadayaa, waa maxay qeybta labaad. iskuulkii asoo yaruu bilaabay ilaa 19 sano iskuulkii uu kusoo gaaray, waa maxay xalka labaad ee u bannaan ilmahayga, ama waa maxay waxa ilmahayga faa'iidadiisa ay ku jirto. iskuule waxaa jira xataa boarding ah oo isniinta ilaa jimcaha ilmaha ay joogaan, sabtiga xadda ay guriga yimaadaan. waxay toondaba go-aanka adaa iska leh, waalidka ayaa go-aanka iska leh. raadiya baaritaan fara badan sameeya, agaarkiina maxaa ka jiro, maxaad adiga ilmahaaga mustaqbalka, hooyoy aabbo, mustaqbalka ilmahaaga baahida gaarkaa leh maxaad u diyaarisay. su-aashu waa taas. marka I hope informationkan inuu yahay information aad ka faa'iidaan insha allah biidni illahi alkariim. jazaaka allah khayran. kulligiin waxaan idiin rajeynaya nimciyo barwaaqo. ilaahayna waxaan idinkaga baryayaa xilligan kala gudubka transitionka ilmaha ay ka gudbayaan, ilmanimada ay gaarayaan, dadka waaweyn ay u gudbayaan, oo ilmaha baahiyada gaarka leh, khaasatan ilmaha complex needska haystaan oo u baahan caawinaad 24 saacadood ah, inuu ilaahay idiin fududeeyo. waa arrin adag, laakiin madaxa intaan macnaha aan ismaaweelinayn oon ilmaha u malayn inay yar yihiin, waqtiguu socdaa insha allah ilaahay idiin fududeeyo. haddii aad degan tihiin ingiriiska oo aad u baahan tihiin talooyin ku saabsan arrimaha guardianshipka, iigu reeba fariimaha inboxka insha allah waa idinla soo xiriireynaa, waana idiin sheegaynaa wixii anaga noo shaqeeya. aniga professional ma ihi, dhakhtaradna ma ihi, waxaan ahay hooyo soo korisa wiil 22 sano jiro. marka waxyaabihii ii shaqeeyay ayaan diyaar u ah inaan idinla qaybsado insha allah biidnillahi alkariim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.